xuska sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay madax banaanida Somaliland oo dhammaanba degmooyinka gobolka Sanaag si weyn looga xusay ayaa degmada Maydh oo ku taala xeebta gobolka Sanaag iyadana si ballaaran looga xusay weynaynta xuska maalinta 18 May waxaana shacabka degmada Maydh kala qayb qaatay xuska maalinta 18 May maayarka degmada Maydh Professor Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Siciid iyo xildhibaan Ismaaciil Jaamac Jibriil oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo waa yeeliyo waxgarad u tiro badan ugu horeynbana waxa madashaasi ka hadlay maayarka degmada Maydh Professor Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Siciid dhammaan dadweynaha reer Maydh ee ka soo qayb galay xafladda 18 May waxaan idinku salaamayaa salaan kal iyo laaba waxa maanta gaar ah in qof kasta oo Somaliland jooga uu sida aynu u faraxsanahay oo kale uu u faraxsan yahay waa maalin caam ah oo ka dhaxaysa reer Somaliland oo dhan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo waayeelaad u tiro badan reer Maydh hadaa tihiin ina gacmaha isqabsataan madaxdiina Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Siciid oo nin aqoon-yahan ah waxay intuu jooganay waxyaabo fara badan oo uu qabtay dibad iyo gudaba laga arkay ina aad u la shaqeysaan gacmaha isqabsataan taas waa iga talo inta waa id kula talinaya kuma iimaane dhiig badan baa ku baxay gobanimada Allah ismasiiyo galbis laguma helo si kastaba haatee munaasabada xuska 18 May waxa si milgo iyo maamuus la uga qabsoontay degmooyinka magaalo xeebeedyada Xiis Laasa Surad Laas Qoray iyo Ceelaayo